ii wadataa maxamed saciid waxay wadataa baashi jalbaabku eeg oo isku kashfi sheeg macnaha okay abaayadina gabadha ka hadlaysa ma gabadha ninka u dhahay masaajid ku dhex neekinaysaa u dhahay miya xataa jilbaab gooni ma ka wadatay libayna aragto xumayna laftigeyga masaajidka masaajidka isbahaysiga waa arkay videogaas gabadhaas wax ka anigu uma malayna wax khaldad inay samayso oo weyn whatever ay samaysa ama whatever ay dhahda absolutely waxaa qalad ahaa erayada uu nin rag oo ragnimo saaka nala sheegeenaa isticmaalay uu leeyahay xitaa guur ma gasho walaashiis ma ogolaaleen in la dhaho guur ma gasho walaashiis ma ogolaaleen in muuqaalkeeda lasoo qaato marka qofka noocaas oo kale aniga markaan dulli leeyahay wuxuu dulli ku yahay aan ku leeyahay wuxuu dulli ku yahay gabar jirkeeda ama gabar uu wuxuu ka raadinaa fiyuus uu ka raadinaa wuxuu fiyuus uga raadinaa maanta walaashiis ma usa soo qaadan lahayn macnaha walaashiis miya nebi miya rasuul miya waayo walaashiis soo qaadan lahayn qofa wuxuu soo qoray ma fiican tahay in masaajid lagu dhexayso qaladka qof uu qaldamay ma qaldamo waa inuu qofka qaldamo lama diido falaa tadcuu maca allahi axada liban aan ku wada liban waa u jawaabaa ilaahay masaajidadiisa waxaa loo sameeyey cibaado haddaba midaan ku dhaho marka su-aashaada jawaabteeda waxaa waaye axad qalad ka galo lama cafiyo hadalkaygaas dhegeyso axad qalad ka galo lama cafiyo ilaa axadka qaladka laga galo asaga ku cafiye maahane laakiin qaladka ilaahay subxaana wa tacaala laga galo ilaa shirki inta aan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala wuu cafiyaa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun u dhahay ilaahay subxana wa tacaala adigoo muslin haddaad dhimatid qalad kasta aad ilaahay subxaana wa tacaala ka geshid xitaa masaajidka dhexdiisa hadaa qamri ku cabtid qamri ninka aad sheegaysaa ilahay inuu kaa cafiyo waxna uma jiro laakiin qof walaalkaa maanta wax dhibaya aad ku dhahdid ilaa qofkaas uu ka cafiyo hadda gabadhaas wiilka qaladka uu ka galay iyada mooy cid ka cafinaysa malaha maalinta qiyaamana way suran tahay saasay u suran tahay xasanaadkiisa inta looga qaada iyada la siinaa xaqiiqana waa taas anyway aniga hadalka ma sii wadi karin gabadhaas walaasheene waxay rabtaa ha dhahdo sidai rabtaa ha samayso meeshay rabtaa ka dhacdo waxaan ugu duceynay iyada iyo in kasta oo walaalay macal anaga naftirkeena inuu ilahay xaqana tuso dadka duliyaashee sidaas oo kale gabdhahanada iyo walaalahanada iyo xaasiskanada iyo hooyooyinkeenanada saas uga dab wareegayan inuu ilaahay ka qabtay ilaahayna tuso maanta maalina ahayn raganimada ee nala sheegana inaysan waxna ka jirin meel cad ilahay inuu soo mistaajaad waxaa la dhoyaa qofka qoraal wuxuu kusoo koroyaa xaasla waay yaa way xaaska yeelayso ninka caawa kuu soo inaya narag isaga kaa dhigaayo gabar kaloo adiga isaagaago kalena banaanka sheegay abo waxaa jirto hooyo markii la dhaho raalina hooyo waxaa jirto la dhaho hooyo maanta si kastay hooyo u tahay si kastay gabadheeda u xun tahay si kastay gabadheeda u fiican tahay saaka hooyo ma jirta yeelayso inay gabar kale inay wiil kale ka dhigaysato gabadhaasaa xun aniga hooyaday dhashay 9 gabdhood soo watay maanta wax kastaa samee hooyo gabadhaan gabar xun waa miga dhegaysanayso waayo ku dhegaysanaynin waxay ogtahay inay gabar tahay waxay ogtahay inay kontoleyd tahay waxay ogtahay inay qofka loo naxariisana ay tahay waxay ogtahay inay tahay qof maskiina daciifa inay tahay ogtahay waxay leedahay gabadha waa xunta ay leedahay adigaa nin rag ilaahay kaa dhigay garashadii garaad ku siiyey waayo aad gabadha u wanaajinayso uraadiwaysa ilaahay hooyadii waana wax saxda xaqiiqda ah waay anyway dadka noocaas allah naga qabto balanteennana waxaa waaye nin walboo dumar ku dhegan aan aragno dulyaatee dumarka nooga leexe aan dhahan war ma dhihi karnaa intaas aad iyo aad saddexdeen waa dhihi karnaa maho aad iyo aad war walaalihi ma dhihi karnaa intaas ilaahani barakeeyo intaan meeshaan ku jirnay bini aadanana nafii shaydaana nagu xiriiro wixii aan qaladnay nafteena iyo shaydaana u xukminaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ana dembi dhaafaan ka weydiisanaynaa wixii aan saxnay ee ilaahayna karaansiiyey ee ilaahay nagu toosiyena ilaahay subxaana wa tacaala u xukminaynaa waxaana weydiisanaynaa inuu naga abaalmariy idinkii anagaba haddaan wax xun sheegnay ama waxaan sheegna xumaana tigtog waxay samaysa waxaan ku dhahay abaayo ani walaalkaa ma aanan dhahaa sida walaalkaaga aan ahay oo walaaltinimada ay igu ogashahay abaayo igu ogolo inaa wax kugu sheega maxaa ii sheegay igu dhahda tigtog xaggiis ka dhigaan dhaha dhalinyaraa taa heesaa dhegaysata waa jays garays waxaa samaysay ma ogtaada markaa adiga gooni u samaysay iyo markaa dad badan kusii daawadaan isku mid ma aanan dhaha abaayo nin raga ahay ninka ragga naag wuxuu u arkaa naagta asturun oo dadka aanan aqoonin iri gabadhaha waxaa laga yaabaa wiilka caanka oo dadka ka dhex muuqda gabdhaha inay jecel yihiin laakiin ragga gabar caan oo dadka ka dhex muuqata inta badan ma jecla maxay u jecleen ragga way ka masiir badan yihiin dumarka ninka ma rabiyo qofta uu jecel yahay ama xaaskiisa dadka dhan inay aqoonaan dadka dhex ku jiro ma rabiyo ma jecla inta badan gabadhan waxay rabtaa qof
bulshada taqaano bulshada ka daba ordaysa rabto waxaan ku dhaha marka kuma fiican iga qaado way iga qaadatay anyway wiilkaas ani hadda aan ii sheegayo waa dadka hadda tiktok ku jiro waa isdhihi karno qofkan qof macquul waay Mr. Liban aan dhihi karno okay qofkan qof maanta garashi iyo garaad u siman waay haddii asaga garashadii garaadka u sinaa uu leeyahay gabar guur ma gasho saa waaye hala arko xumaanteeda uu sii faafinayo kuwa caaytamo oo caayda kusoo gala iyo kuwa qaabida kusoo gala iyo kuwa waalid iyo walaal saas ka dhigo sidee wax ugu sheegna Mr. Liban su-aasha aan weydiina intaasoo walaaleeya مستنان سؤال شو قدام بيسوي قفك وقوم معقول صناعته سيدا سمينا أو قبل ضدك ولا على سيتو سأقولي حتى الكور ما كشوف ومقال كذا سيفا في نفيري إلى هي عورة أحد مسلم عوردي زي مقري إلا قفك كالولاد يسوي عوردي معنا أو قري حميس وقري ما أنت عروش توقعت يقطع ومدي ودنيا وذرادي سال لقيها لكن أنت هناك هذا إني تطير قاعدة طال لقيها مركب قفك الساس معقول كويكا وما تدين قف كان معقول أنا مهمة إنا سوقات أصلا مهمة إنا مجلس ماشان كشيء مهمة إنا وحرادي وأسكتي إنا رادي إنا الله لو أسكتي وأن قرآن وقرآن الله لو أسكتي لكن وحو أرجع بوحي فيوس وأرجع ستوس وعيوداي وعن هو هذا الهين ومعلمس عناين عادي ويكدع وعن هذا الهين ويكدع إنا وحرقنا فيديو تيك توك مركو كومنتي بطو لايك تاع بطو فيوس كان بطو مركو كومنتي بطو we agree yeah exactly wuxuu ii sheegay marka inuu gabadha muuqaalkeeda uu dadka tusaayo inuu fiyus ku raadinayo dadka noocaas oo kale sidee ula hadalnaa marka ani waxaan qabaa wiilkii meel soo istaago oo gabar soo qaatay ilaa nabiga xadiidka wuxuu ahaa laa takrahu albanaat fa inahunna mu'nisaatu lqaaliyaat ha ku ciyaarinoo ha gooninoo ha sheegsheeginoo xumahoodo dhowr uu dhahay nabiga إلى ونسات القاليات وهديت إلى هاي النسيب الأولى قفك جبر سوقات من سو صار حتى هذه جبر تقابلته أنا وعاقبة إلا قر دليات الدمر ككله دليات الدمر ككله أرجع سنو عن نقل جعل الله دليات الدمر ككله دليات الدمر ككله دليات الدمر ككله إلا قر حتى جبر فوق دليات الدمر ككله إلا قر جبر سوق فيديو قصة مسوا أدل رب إلا لا تري مركور وإلا لا صوت تقالما ويلكاس أو حمانتي الزيفا فينا ويلكاس أو كلام مركي لا صوت تقالما كبعد هذا لو سوى جزء كلام ساساني عم قبل في كي أنا هذا قدر صار علشان مهمة قف كارت وحصادي جاي ما رنت هذه الرو وحاول تتكفيس كنيبة يا ما برشة وايدتك أو قف كاس تاجر يعني أما كروسي قاعدة يعني وحقف صادق مركب مهمة وحاول برشة إن لا شيء برشة إن لقى دادبي إن اسمان التاجرين haddii iyaga aysan gaarsiin meeshaas ma gaarayo marka ummadda in wax loo sheego ummadda in lala hadlo ummadda in dad wanaagsan laga soo dhigo kadib waxaas oo kale iikaan basaas u soo badanayay qof walba qofka hadda maxaa dhahdeen waxa uu soo qaatay sawirka ama videoga waxa uu soo qaatay si obvious gaar wuxuu ogyahay hadduu waxaan soo dhigo in uu ummadda views ka helayo laakiin hadduu ogaan lahaa in qof walba sida hadda adhiis oo kale taariikh oo dhahayo dulliyaatee dumarka Soomaaliyeed ka leex hadduu qof walba oo dhahayo ogyahay sooma uusan dhigin lahayn مركز تردد أنا وحدي لا مكورة تبرشل. أنت صدق إيسا ميسين سومالي إرجع قفكم مو كنا هو صعدا مهم ما إرجع هنا عنيا كنا لكن إرجع وحاول إرجع أن تبكي نكوبة بات سنين أحبابي